Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool John Klopp ayaa fariin hawada u mariyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Klopp ayaa Premier League waddanka Ingiriiska waxa uu dhawaan kula guuleystay kooxdiisa Liverpool oo muddo 4 sano uu joogo. Ciyaartoyda Liverpool, taageerayaasha iyo macallinkaba iyo maamulka kooxda waxay u dabaaldegayaan guushii weyneed 30 sano kadib Liverpool oo ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ayna sanadkan 2019-2020 noqdeen horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda ku guuleysatay. Kooxda kubadda cagta Liverpool taageerayaashooda Soomaalidu qayb ay ka yihiin ayaa sidoo kale u dabaaldegaya. Klopp oo fariin hawada u marinaya taageerayaasha kooxda ayaa yiri, waan idin jecelnahay, waxaad tihiin taageerayaal dhab ah, waxaan rajeynayaa inaad dabaaldegtaan, laakiin dabaaldegiinu ha noqdo mid lagu xakameynayo xanuunka coronavirus iyo inuu magaalada iyo halka aad joogtaan ku soo laabto. Premier League ayuu sheegay sidoo kaleeto in taageerayaasha Liverpool ugu hambalyeeyo guusha ay gaareen macallin Klopp. Ku guuleystayaasha Premier League Liverpool ayaa hadda waxay u dabaaldegayaan taageerayaashooda in kooxda kubadda cagta Liverpool 30 sano kadib gacanta ay ku dhigto horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League. Tababare Klopp oo sii hadlaya ayaa yiri, markaad eegto taageerayaasha kooxda waa kuwa qaas, waxaan rajeynayaa inay noqdaan taageerayaal markasta guusha kooxda iyo guuldaradaba la garab taagan. Guul iyo guuldaro waxay sidoo kale doonayaan inay eegaan xaalad kasta oo kala guur oo kooxdu ay ku doonayso inay horumar ku sii sameyso. Heesihiina ayaan jecelnahay, dhawaaqiina ayaan jecelnahay, sacabkiina ayaan jecelnahay, ayuu Klopp u sheegay bogga internetka kooxda Liverpool page-ka ay ku leedahay ee Liverpool FC. Tababaraha ayaa ciyaartoydiisa waxa uu sheegay inay yihiin geesiyaal, isagoona u rajeeyay in xilciyaareedka soo aadan mar kale ay difaacan doonaan horyaalka Premier League ee England. Macalinka reer Jarmal Klopp ayay ku qaadatay muddo 4 sano ah in kooxda kubadda cagta Liverpool uu kula guuleysto koobka Premier League, waxaana uu sidoo kale rajeynayaa inay ka mid noqdaan kooxdiisa in sanadaha soo aadan ay ka mid noqdaan kuwo heer sare ka gaara ciyaarista kubadda cagta iyo guulo u soo hayaan Liverpool, maadaama Champions League xil ciyaareedka hore ay ku guuleysteen. xil ciyaareedkan ay noqdeen champion England ama kooxda ugu guuleysatay horyaalka Ingiriiska ee Premier League.